kulankan oo laba cisho u socday xubnaha guddiga maxadka dowladaha hoose ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kamid ah maamulka gobolka Banaadir, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo looga hadlay sidii loo hirgelin lahaa maxadka dowladda hoose ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Agaasimaha maxadka qaran ee dowladda hoose Cumar Maxamed Caalim oo ka hadlay kulanka ayaa faahfaahiyay warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo laga soo saaray kulankaas oo laba cisho socday. dood iyo dadaal badan iyo wada hadal waxa ka soo baxay qodobadan kuwaas oo kala ah koow in dib u eegis lagu sameeyo istiraatiijiyada macadka dowladaha hoose. labo in manhajka macadka dowladaha hoose la soo dhameystiro laguna soo dhameystiro muddo 2 bilood ah. in la sameeyo tababara maxay raadaan xubnaha branchiyada iyo isteediyada ka howlgalaya. in la soo dhameystiro magacaabistii agaasimayaasha laamaha ama branchiyada maxadka dowladaha hoose isteediyada. in la qabto shir dhaqaale ururin fundraising loogu ururinayo maxadka dowladaha hoose. Aadan Faarax Gaarane oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay cid aan haysanin shahaado uu ka qaato maxadka qaran ee dowladda hoose inaysan shaqaaleysiin doonin haddii maxadkaasi laga hirgeliyo Jubbaland. ruuxan macadkaas tababarka macadka aan soo qaadanin aan shaqo dowladda hoose aan qaban karin, marka waa arrin runtii guul leh. macadka waxaan ku faraxsanahay inuu horey u soo diyaariyay curriculumkii ama magaranaysaa buugagtii lagu tababari lahaa oo habkii loo raaci lahaa. siyaasadii laftigeeda waa drafti. waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gabagabeeyo. marka insha Allah waa bilow. waxaan ka rajeynayaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka mas'uuliyiinteeda inay hawshan ay garab istaagaan. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saciid Cabdullaahi Calasow oo soo xiray kulankan ayaa sheegay in ay ka doodeen arrimaha ku saabsan maxadka qaran ee dowladda hoose iyo sidii guud ahaan dowlad goboleedyada looga hirgelin lahaa. dhammaan ka soo qaybgalayaasha marsharafta sida fiican uga dooday ee maskaxdooda iyo waqtigoodaba ku soo guteen in ay sameeyaan macad dowladaha hoose oo ku bogaadinaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta waxay diyaar u tahay in ay daadajiso aqoontii dowladaha hoose. waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ku dadaali doono sidii aan u horumarin lahayn tababarada iyo xirfadda dowladaha hoose. Liibaan Cabdi Cabdo, warbaahinta qaranka, Muqdisho.